يجيو ومدى الصومالية قف كمين إنه سبعين قبيل إنه سنين قنبو يا إنه ضعيف إنه أقوى سنوراله تشيشيا ورشاي وكاسوها مبادئ العاي كاسها مركي أنا كي أنا وضعت كي هو أي وضعت كي ولا مقبحي ودوني أن أقول هاي هل تاكو ملكي يعني كملي باص كملي وجورو كملي وحوار ملي محيا إنت كتير كان ما توقع أنا وصلت أول شيء مركي أنا كي دولة الصومالية حتى إيران بقنتي كافكاي وشقيسي كالكاي الله يقطي سد حبيب بالجوهري سيفول حلو إهانة على إلى ضغمي والله يقصو قاضي مقدوش الله يكرمي وحلا إلى ضغمي سيفول حلو إهانة على إلى ضغمي مركي أنا كي يلو تيجي لا يقدر دوبي وإنها لا يحرج أنا عقعد أو قاون ليوريتي عينا كيتوبيا وحي أهلنا يقعد يجيسي مركي أنا مركي المركلاتو أربعة كويا لما قالوا لك الصومالية عن قياسا إنه ها ضرفة حدود الروحية ما كان بينما هي وصورة مركي أنا مركي في اللي يسوي الشيء عن قياسا إن صور اللي قاعدين هايو إسلام مركي ما ديالة اللي يعلي مركي اللي يقولي ويسوي صبحين صومالي قيد يدي حماي وقولي شوف لأن تمرك يقول قبسده أفلاقات مركي مثال سيء هي مركي لا قاضي أنا هو يهانيسن أو كتير رئيسن أو لغة كحلا أو عجا حك أو نباح كحلا أو جماعة كحلا وحال أمير إن أنا نطلع هاي وحاجة العظيم أو قلبي قلبي سويدي إن أنا نطلع هاي وحال أركي أو نسير أرحم بيتي وحيقب بعضي أحين تاسي ويرجع محمد طول بحي وحيقب بعضي مركي أنا أركي أولو قاضي إن الله هاي ولا الله صوماليا أو كبدن صدن مليون ولا الله صوماليا أو كبدن صدن مليون أو ترى كافوش عن حال مروة دقاتي أو هيلي هو إلى قرب تاجر أحين تاسي يقب بعضي رنتي وحايل مقطعي إن أنا هاي قفة تبقى أبو الجية أحين كبدن waxaan gartay dhibaatada waxa ii geysatay inay ahaayeen ashxaas dambiir aan lahayn ashxaas shaydaan u hogaansatay iyadana waxaa u furan inay toobad keento waxaan howlahooda uga hadli doonaa markale si fiican walaalayaal runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina waan xamaasadaysnahay waana laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdhaco waxaan markaa ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtiisa dambe wixii tartaanana iyo waxa aan ku shaqeynay iyo habka aan u balqaadi doono waxaan sii wadanayaa mahadcelintii waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto oo ayaduna qaadatay door aad u weyn oo gaarsiinaysa dhammaan shucuurta Soomaaliyeed qarba xaaladaydu halka ay marayso iyo qaabkii loo dhaqmay iyo habkii baarlamaanku u difaacay dhammaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha waxaan u tabinayaa hambalyo iyo mahadcelin baan iyadana u tabinayaa lambar 5 waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo iguna martiqaaday xafiiskiisa waxaan mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu dhaqmay ee isbedelka ee uu soo daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaq iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahay halkaa inuu ka sii wado inkastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsanahay in ayadana xal laga gaari doono aad baan ugu mahadcelinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiinta kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii Soomaalida ahaa iyo oo leeftu u xidhnay habku ula dhaqmay ay habku u sii daayay sidoo u maamusay aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan aniga qaabku ila tacaamulay iyo qaabku u sii daayay isagoo cidina tala ka siinin isagoo cidina wax qorshe ka siinin
عند كلية ويشاقي رجع يجا كميدا ما هالسجع ويشاقي هو شيء ما كان وحكوي بدي وهو حالنا يعني أنت هذا بدل يوسع العليبي مرة مسيك كفور عن سجعين وهو هابي يقول محمد ذوبي خلاص هذا ما العليا runtiina waxaad moodaa inuu jahan fiican qaatay siyaasiyiinta iyo madaxda sida ay uga hadlayeen waan la qabaa in jahada la qaatay iyo marxaladda maanta oo ay marxalad kala guura in si fiican looga wada faa'iideysto number 6 waxaan u mahadcelinayaa dawladda Kenya oo noqotay dalkii labaad ee dadka Soomaaliyeed martina gelisay qaxootiyaal badan oo malyan gaaraya isla mar ahaantaana xarunteedii ay noqotay حركة الصومالية dadka Soomaaliyeed xarun u leeyahay oo laga dhiso dadka Soomaaliyeed dawladda Kenya waxay qayb weyn ka qaadatay difaaca iyo dibdhiska dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan leenahay iyaguna waa mahadsantii waan mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan jeclahay hay'adaha xuquuqul insaanka gaar ahaan Human Rights oo iyaduna si aad u ballaaran oo baaxad leh ogaada uga soo saartay bayaan ay ruux cadaynayso dacatiga iyo jariimooyinka ka dhacay welina ka socda gobolka la yiraahdo Ogaadeniya ama Soomaaliga Galbeedka waxaan u soo jeedinayaa madaxda wadamada in ay tixgeliyaan riboodka hay'adaha xuquuqul insaanka oo dadka dhibaatada gaadhay si fiican u soo diyaariyo xaqiiqo ya taas markaan ka soo laabto walaalayaal mahadcelintayda iyo xaaladayda waxaan dib ugu soo laabanayaa dardaaran haddaan maanta oo dhan wado saad u shaqayseen iyo sidaad u difaacdeen ummadda Soomaaliyeed qof walba oo Soomaaliyana uu maanta isku hadlaynayo dadkiisa iyo sida ay u tiitiyayaan sida ay u garab taagan yihiin waxayna gelinaysaa geesinimo iyo raganimo iyo dadaalkeen inaan sii kordhino waxaan jeclahay in aan dib ugu soo laabto mar kale oo soo bilaabo mahadcelintii dadka Soomaaliyeed walaalayaal idinkoo mahadsan waxaan idin cadaynayaa idinkana idin kula dardaarmay kow idinka waxaad tihiin dad Soomaaliyeed oo dal ka dhaxayso waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dhalasho iyo dhiig iyo dalba wadaagta inay midoobaan gacmaha isqabsadaan wax wada qabsadaan is-aaminaan wixii xurguf iyo walaalguba ee qulubtooda ku jirana inay iska dhaafaan isna cafiyaan sidoo kale waxaan jeclahay in aan u soo jeediyo madaxda Soomaaliyeed inay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed madax cadaalada oo ula dhaqanta si daacad ah mideeya isu keena wanaagooda ka shaqeeya sidaa darteed waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed xilka aad maanta haysaan beri waad ka tegaysaan waxaana idinka hari doona raad taariikheed oo noloshiina ku yeelan doona raad aan ka hari doonin qof walba wuxuu maanta kaga tagay dadkiisa iyo wuxuu kula dhaqmahayaa waxay noqon doonaan raad lagu xusuuso taariikheed sidaa darteed dadka Soomaaliyeed maanta waxay idinka baahan yihiin hiil iyo midayn iyo isu keenid iyo in la cafiyo inay iscafiyaan si daacadana u maamushaan taasay idinka sugayaan haddii kale waxaad yeelan doontaan raad foolxun oo weligeedu ku reeba muruga aan idinka hari doonin intay hadda waqtiga u fursad baadaystaan madaxda ummaddu waa inay ka faa'iidaysato fursadda dadkoodana daacad ula dhaqmaan ilaahayna ka yaabaan wixii xumaanaya ay wadaan ay ka joogaan markaan saa leeyahay maaha inaan tilmaamahayo gruub iyo dad gaara maaha ee dadka Soomaaliyeed madaxdiisa oo in badan oo kamid ah calash ay ka timaado inaasaan dhiila waxaan jeclahay in aan wax yar ka taabto madaxda dawladda Soomaaliland iyo Puntland dawladda Soomaaliland iyo madaxweynaheeda Muuse Biixi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa siday isugu tashadeen siday dadkoodii iyo deelkoodii u mideeyeen sida ay ammaankiisa u sugeen ay gaarsiiyeen doorasho qof iyo cod ah oo lagu kala badiyo halleeri sidaa darteed dadka kale waxaa la gudboon ee Soomaaliyeed iyo maamuladooda
inay walaalahood kaga daydaan horumarka ay gaadheen iyo dadaalka ay sameeyaan waxaan leeyahay marka labada madaxweyne ee deriska ah ee dadkoodu walaalaha yahay dhibaatada waayahan ka dhaxaysay ee ka jirta tukarraq labadaa oday waa laba oday oo dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin inay aad iyo aad rag caqli badan yihiin oo aqoon-yahano waxgalo hase yeeshee waxaa nasiib darro ah hankii laga filayey iyo maanta halka ay dhigaan dadka meelaha qaarkood waxay isku haystaan 1 kiiloomitir oo liyaa tukarraq waxaa ku dhimatay dhalinyaro walaala oo gabdho iyo rag leh yaa ku dhimatay waxaa ku gablamay waalid oo ilmihiisu ku dhintay waxaa ku agoontoobay carruur yaryar oo Soomaaliyeed waxaa ku rajoobay carruur yaryar oo Soomaaliyeed sabab la isugu qabsada hal buqcad oo kamid ah dalkii Soomaaliya oo dad walaala la isugu dilana ma garanayno sidaa darteed waxaan dhihi lahaa madaxdaas labada gobol labadaas dawladood in ay ka baxaan dhibaatadan iyo dagaalka inay ka saaraan dadkooda inay u ogolaadaan deegaanka dadkii joogay ee ka barakacay noloshoodii oo dhulka ku dhacay aad u burburtay inay mar labaad dib ugu soo noqdaan dalka deegaankoodii oo dib u dhisaan kaaladahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxbarashada ilmahooda dib ay u dhisaan intaas waa in aan ka codsanayno waan qabnaa dhammaanteen inaan sidaa uga codsanno innagoo isku mid ah in ay meelaha khilaafaad ka jiro iyo xumaantu in laga wada xalliyo si walaalnimo loo xalliyo waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed wixii khilaafa iyo kala qaybsanaana inay ku xalliyaan hab nabadgelyo iyo wada hadal inay ku xalliyaan aad baan u jeclahay waana ku codsanayaa waxaan ku soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya ma jiro oo dhibaato ah ha yeeshee waxay ku midaysan yihiin oo ognahay waxaa jira cibaadada Ilaahay waxaan ahayn ku midaysan yihiin inta badan waxyaabo badan way isku khilaafsan yihiin wax badanna way ka midaysan yihiin laakiin arrinta mar walba khilaafkeeda istaagan ee Soomaali dhex taala waa arrin dunuub lagu dhamaanteed waa arrin dunuub ka dadka wada waa arrin foolxumaan sidaa darteed cafis iyo masaamax in la soo wafiyo idinkuna aad ka bilowdaan intii la fadhida yaan ka rajaynayna aanu soo noqdo aniga iyo xaalad anigu sidii aan ugu taagnaa dadka Soomaaliyeed 3 qodob ama 4 qodob ayaan idin cadeynaya oo ku shaqeynayo qodobka koobaad inaan dadka Soomaaliyeed ula dhaqmo si cadaalad ah oo sinaan ah oo lahayn gobolaysi qabyaalad iyo qof jeclaysi midna inaan ula dhaqmo dadka Soomaaliyeed laba inaan qayb ka noqdo xal u helidda iyo isu furidda qulubta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha kana shaqeeyo noloshayda inaan ka shaqeeyo dadka Soomaaliyeed inuu walaaloobo gacmaha isqabsado taasna waa qorshahayga waxaa ii qorshe ah sidaan horeyba ugu taagnaa in aan raadiyo dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo xor ah oo ka madax bannaan wax kasta oo gumaysi iyo cadaadis iyo dadka hoose maaraanka ma aqbali doono waxaan aaminsanahay in wixii khilaafaada iyo colaad ee ka dhaxeeya ummadaha dawladaha urur iyo dawladda in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wada hadal oo ummadda la gelinin dagaal aan dhammaanayn taa waan aaminsanahay in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wada hadal wixii khilaafa ee ka dhaxeeya dawlado iyo ururo oo inaga khuseeya waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan iyadana ugu baaqo ra'iisul wasaaraha Itoobiya maanta wuxuu waajahay in uu ka gaadho xal iyo go'aan fiican khilaafkii dheeraa ama khilaaf maaha dagaalkii dheeraa ay soo wada galeen shucuubta Itoobiya iyo ta Soomaaliyeed wuxuuna ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu go'aan rasmi ah inuu ka gaari doono sidaa darteed waxaan ku boorinayaa inuu arrinta ka soo noqonin ee ka dhabeeyo xaaladda ka taagan colaadda geeskan Afrika ee Soomaaliya oo dhan saamaysay ee Itoobiya saamaysay ee kacdoonada dhalisay ee abuurtay khilaaf iyo xataa Soomaali gudaheeda in waxyaabo ka soo dhashaan ee shisheeye Soomaaliya soo gelisay waxaasoo dhan waxay ka biqnahayaan xuduudoodu ay tahay gobolka adduunka u yaqaano Ogaden region ilaa khilaafkaas
إلا أولاد هالك كتير تقول كان الحليانة ولقيت بدي بيسو سيدا دكت الله يقول كاس حلقة جرب وحنا إن شاء الله هاي ورا الليال يدينكو مع صد يدينكو رنتي عن مرور بوجيه من فرحة قليليان إن أنا يدينكو باغو إن أنا أول طريقنا إن أنا لما أنت أول شقين وعطيد وراكم عينايا مدنمو سومالينمو ولالنمو ورفيوري وحنا إن شاء الله هاي إن أنا كسو قبل صدح صدين لقابو كو سومالية توس ولبا الراوي ذكي آمنا أولد ومض ولبا آيهبا إنا جرطو إيا غالب أرني اليوم مركا أورك هو يدي إفكا وغصوا بحي ليدي سؤول قليل كيوان غريو أرني اليوم مركا كاهو سيدي أدوسي اللتيرا سوموغا إسابو كلية إن أنت على كتابه وأنت على لها فلقات هي شقضيض وأعطاك كما تحمل غندونه كوح قارة معاملة الصوماليات لأنه تومي مايو كوامل بدونه وحان تاجنا هاي الصومالينمو وحان كشقيسان لي شاقي وحان تاجي دونا تبكى الصوماليات نلقى سوق دقية كسمايا إن أنتبه حامر إن أنتبه إن أنا أي سورة قشو بلدويني إن أكبرنا هاوغل إن عمقتا أما أكبرنا ربو سمريب إن أنتبه بوساتسان وطداو هايو إن أنتبه تيريو إن أنتبه لو يعدو إن أنتبه أنتبه يرحل إيا دميرا إن أنتبه ونحن يساوي هكاك waxaa jira asxaab inay diyaarinayaan ama aan gacan ka sii doona in la qoro buug inta badan ku aadan aniga iyo saan soo shaqeeyey iyo taariikhdaydi ka hadlaya halgankii iyo intaan kala socdo howlgalladeydii iyo intaan kala socdo inahaas buug ku aadan yaa waxaa qoraya aqoon-yahano Soomaaliyeed يلا ساعة الله سبحانه وتعالى وقت وصوب حنا إيه قال كيسو بينا سوماليا هاي سوماليا سوماليا شعرنا سوماليا هذه هي يغني